madaarka magaalada Berbera ayaa ka warbixiyay xaaladda madaarka sida warkaasi noogu soo diray wariyaheena Cabdiqani Cabdulaahi Baafo oo nooga soo warama magaalada Burco. gudoomiyaha guddida dibudhiska madaarka magaalada Burco Sheekh Cali Maxamed Axmed oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa sheegay inay istaagtay gebi ahaanba hawlihii shaqo ee madaarka ka socday sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay inay daadadkii dhawaan ku soo fatahay magaalada Burco ay saameyn weyn ku yeesheen dhabihii diyaaraduhu ka hadi jireen ee qarashka badan ee ku baxay xukuumadii hore ee madaxweyne Axmed Silaanyo hirgelisay waa kan gudoomiyaha dibudhiska madaarka magaalada Burco oo ka hadlaya arintaas waxa weeye 3 moos oo isdaba yaala oo mid waliba 3 kiiloomitir u yahay oo loogu talagalay in runwayga lagaga ilaaliyo daadadku inay galaan ayaa la sameeyay iyagiina waligood waxay ahaayeen sidaas ay maaragtay maxay tahay u taagnaayeen biyaha uga ilaalinayeen hase haatee roobkii hadda ugu dambeeyay maaragtay maxay tahay wuu jiray kulligood wuu jiray oo wuxuu maaragtay maxay tahay runwaygi ayay biyihii ay gaareen waana hawl u baahan muxuu ahaa wax ka qabasho airportku marka airport la yiraahdo laba shay baa ugu muhiimsan waliba shay baa ugu muhiimsan waa runwayga way waa dhabaha diyaaradda way dhabaha diyaaradda markii ugu dambeysay waxaa lagu tala galay dawladii ugu dambeysay waqtiyadeedii ugu dambeeyay waxay ku tala gashay hawsha in la bilaabo marka runway la samaynayo horta waa qaali runwayga iyo abronka waxa loo yaqaan abronka waxa weeye waa muxuu ahaa waxa la yiraahdaa abronku waa parkinga diyaaradahu meeshay ku soo parking gareystaan ayaa la yiraahdaa wadada isku xidhan runwayga iyo abronkana waxa la yiraahdaa taxiway ayaa la yiraahdaa saddexdaas oo la isku daray waa la qiimeeyay qiimahoodii wuxuu noqday 14 milyan ayuu qiimahoodii noqday marka 14 milyan waa lacag aad u fara badan waxay hadda shacabka lagula noqonayay laha maaragtay maxay tahay xogaagan keenaya sheekadii way ka baxday waa laba mid inay dawladdu u baryo tagto oo madaha dawladaha kale ay u baryo tagto iyo inay ka dhigato priority yani shayga ugu muhiimsan ay dawladdu danaynayso inay ka dhigato labada midun ayaa hawsha muxuu lagu gali karaa hase ahaatee dawladii hore way bilowday oo waxa ka horeeya intaan muxuu ahaa hawsha la bilaabin qiimeyntaas de waxa sameynaya waa inay shirkad maaragtay maxay awood u leh oo aqoon u leh inay samayso ayaa loo baahan yahay dawladii hore aakhirkeedii ayay hawshaasi socotay waxaanu filaynay dawladdanina inay halka ka sii wado oo maaragtay shaqadaasi aysan istaagin ay halka ka sii socoto hase ahaatee halkii meeshii dawladii hore ay ku ogeyd ayay shaqadaasi maaragtay maxay tahay ay ku istaagtay istaagaasina wuxuu keenayaa dhulkii inuu biyo dambe dib u galaan ama xitaa hadaan dabadaha ka soo gelinin ka cirka ka da'aya inuu ku da'o dadna waxa walba maxaa loo qoday ciidda jilcisanaatay roobka ku da'ayna ciidii buu sii jilcinayaa dadna dib loo qodo hadhow dib loo soo dhiso hawsha badan baa halka maaragtay maxay tahay ka imaanaysa dhaqaale kuma qaadano mushaar kuma qaadano gunno kuma qaadano waxaan u joognaa caawimo shaqada iyadu annaga waxay ahayd volunteerkaasi maaragtay maxay ahayd waxaanu ku shaqeynayno awood ku ahayn title ma aanan haysanin title yani maaragtay iska gudoomiyaha dadku iska yiraahdo maahane title dawladeed oo aanu maaragtay maxay tahay ku awood ku nahay oo hadaan madaxtooyada rabno ku galayno oo keer ku sameynayna ma aanan haysanin laakiin waxaan la shaqeynayay de kolba cidda mas'uulka ka ah airportada hadda waxa mas'uul ka ah airportadii ninka waxa mas'uul ka ah maareeyaha duulista ayaa mas'uul ka ah ilaa iyo maanta hadda sanad iyo waxaan u malaa 2 sanadood dhowdhow ahaa ilaa iyo maanta uu noo suurta gelin waayay inaan la kulano dalab iyo waanu u geysanay laakiin uu noo suurta gelin waayay inaan xitaa la kulano iska dhaafayno intuu isaguna ilaa iyo maanta ma imaan waa Cabdiqani Cabdulaahi Maxamuud Cabdiqani Baafo wararka telefishinka Royal TV magaalada Burco.